إن شاء الله تعالى أبوان صوماليات أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما يكون هي شعر كون قصيدة كون كسر كون إن شاء الله تعالى يعني الله قادم من المولدين بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa laga yaabaa Soomaalidu markay gabay maqasho ama suugaan dadka Soomaaliyeed inay dhagahooda ku soo dhacaan mar walba suugaantii toltolka Soomaaliyeed ay isku tirin jireen sida gube iyo silsiladii xaydha iyo gabayadii cayda ahaa laakiin sidaa maaha mawduuca waxa ka hadlay Sheekh Maxamuud Maalin Dhaweyd yaan wada qabanno ahaa diinta islaamka iyo suugaanta maxaa ka saxa maxay iswaafaqsan yihiin arrinkaas halkaas weeye waqtiga oo yar awgeed ayaan waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo rasuulka dhalashadiisii ilaa iyo dhimashadiisii oo mukhtasira oo aan ka soo istinbaaday kitaabka Raxiiqul Makhtuumka aan ka keenay asal iyo nasna aan u sameeyay laakiin in yar baan rabaa inaan idin wadaago taasi waa jiifto gabay ku saabsan rasuulka sallallahu alayhi wasallam noloshiisii oo 3 daqiiqo 4 daqiiqo soconaya kasaahida dunyadu silsilad socota weeyaane haddii ay samaan leedahay oo lagu sarraynayo ama siinaday leedahay oo laga salgaarayo subanaha nebigii ayaan cidi sadaanteene sabankii saxaabada ayaan silic ahaadeene war siirada akhriya diinta dunida waa kala samraysaane aan sii akhriyo oon sunnaha sadar ka soo qaato subanaha nebigii balaan idin sifaaleeyo salawaatullaahi adduunku ka saahiday saambuu ku jiifsaday intuu saaray dhinaciisa saacada markii uu hurday buu sare u soo toosay sawir baa jidhkiisii ku hadhay saanku adag jiife saxaabadu furaash bay damceen inay ku seexshaane oo ay sariiriyo barkimo sare u qaadaane subanuhu hadalkuu ku yidhi lama saluugayne safar maa lii walidunya safar baan adduunyadan ku ahay waan sagootiyaye ama seeto farasaan ku xidhoon geed yaryara seexday sidaasaan ka dhiganahay haddaad saxu fahmaysaane sariiriyo furaashyaanku arag soonka gurigayga war sawjaadkii nebigee lahaa Saynab iyo Caasha sawjaadkii nebigee lahaa Saynab iyo Caasha Safiya iyo Sawdi iyo Xafsi iyo hooyadii Salaama saddex baa saadii gabayga iyo siinkii geli weyday sagaal bay ahaayeen qofkii saxu yaqaanowe subanuhu maantuu dhintay samadu dhilowday soof ugama tegin xoolo iyo geela saanyadaye sardhow dabaq sabaaxiyo ma jirin sara la jeexdaaye sayfin iyo akoonuma furnayn iyo sanduuq weyni salabkii dagaalkana ninbaa suuqa kaga haystay war siirada akhriya dunida waa kala samraysaane sanadkii daraaye asxaabu fiilkii kabcada ay ku duuleen shimbiruhu u soo diray dambasyaalo culusay dusha kala dhaceenu daafacay ilaahay duhurkii isniinaad markay dihatay aamino dooroonaheennii rasuulkii la doortee dadka ugu mudnaasow dibadda uma soo bixin awowgii mudalibsow diiftii agoontiyo darayada kamuu jirin sacdiyo dadka u jecel sow dararta caanaha horaadkeeda kuma duwin oo hooyo dhiiran uma noqon qof la doortay inuu yahay sowmay dareemino diiftii agoontiyo darayada kamay jirin dadka oo abaar degan iyaga duunyadoodii sowdoog ma cunino sow dararta caanaha doobiga umay culan asagoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam duleedkiyo cayaar dabada ugu baxay sow daruur hadhaysiyo malag duuli uma iman sow intuu docda u dhigay ma daloolin feedhaha wadnihii dahaadhnaa intuu dibadda soo dhigay halka laga dambaabee ibliisku dadka u galo biyo dahab kumuu dhiqin oo dib intuu isugu tolay dabadeedna kama tegin rasuulka sallallahu alayhi wasallam deganaanshihiisii dadnimada la socodkii deeqdii iyo waxbixintii dabcigii iyo aqoontii dadkii reer makaadsow magiciisii Muhammad amiin soo uguma darin sallallahu alayhi wasallam markii ay da'diisii 40 ku durugto deeqdii ilaahiyo waxyigii diyaar yahay dulmigii iyo asnaamtii intuu diiday oo nacay degmadii makaadsow dibadeeda uma bixin buurtii dalooshiyo
godkii qaara xirasow intuu daakhilka u galay daa'inkii ma caabudin malag eebbe soo diray dabadeed umuu iman oo iqra diinta kuma odhan ma anaa biqaari'in dabadeed ma uu dhihin sow duruusta diintiyo waxyigii kumuu degin culays buu dareemaye degdeg sow ugama bixin daartii khadiijiyo daaskii ay ku noolayd dabadeed markuu tegey muxuu yidhi nabiga sal lay wasalam zamiluunii 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 buu yidhi idadsow kumuu odhan khadiija maxay tihi radia allahu canha dadka waad u roon tahay deriska waad u wacan tahay ruuxii daran yahaysana jidhkaagu waa u dubaaxshaa daa'inkii ilaahay kuma dayrinaaye sow hadalla daacada qalbigiisu kuma degin rasuulka sal lay wasalam duqii waraqa binu nawfal khadiija degdeg soo uguma tegin maxay tihi adaadiimihii hore daliilkooda garanoo wax dawayn karaayee maxamed baa la daaraye kaalayoo dabiiboo u ducay ma ay odhan duqii waraqa wuxuu yidhi daliilka iiga muuqdaa waa nebi la doortaye da' baanahay gabowdaye haddaan xoog u darbanahay marka ay dadkiisu dibadda ay u saaraan diintaan ka baran lahaa waana daafici lahaa waxse iga dardaarana diintaada ku adkow rasuulka sal lay slam waxyi baa ku soo degey yaa ayuhal mudathir waxyi baa ku soo degey rasuulkii la doortow ha isduubin hana isdadin u dig oo khalqiga toos maryahaaga daahiri dikriga iyo xuskana badi dulmiga iyo asnaamtana waa inaad ka durugtaa deeqdaada ha u bixin damac iyo adduun badi diintaada fasdac bimaa tu'mar baa nabiga lagu yidhi diintaada kor u qaad dadka oo dhan gaadhsii dumar iyo rag labadaba haddii ay ku diidaan falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiisi asafa haddii ay ku diidaan cadhayay du kugu odhan diiqad ha isku gelin adag u ducay inay bahay dariiqaaga mariyo qalbigooda soo dumo daacigii ilaahay diintiisii kor u qaad dadka oo dhan gaadhsii dumar iyo rag labadaba duqaydii qurayshiyo doqonkii abijahal sowma diidin nebigii oo dood raqiisiyo dacaayaad laguma furin dadkii nebiga raacana dibindaabyo iyo cay dusha sow ugama ridin oo qaarna lama dilin dulmigii iyo xumaantii daacigii ilaahay rasuulka sal lay wasalam tala wuxuu ka doorbiday dadku inay hijroodaan waa hijratu uula ay la soco dadku inay hijroodaan oo doonya raacaan oo dal shisheeye aadaan dacallada asmare iyo sow musawac kama degin oo boqor dulmiga neceb doolkii uguma tegin daacigii ilaahay dacwad iyo xil gudashadeed markuu daa'if ugu baxay sow daalimiin shiray dumarkii iyo carruurtii sow laguma dirinoo dhagax laguma dawdamin dhiiggii ka dilindilay rasuulka sal lay wasalam sow gondihiisa kama degin malag eebbe soo diray dabadeed umuu iman inaan daa'if rogo oo buuraha ku dumiyo dukundaakun laga dhigo ma iga daalibaysaa daacigii ilaahay samir buu dugsanayay muxuu ku yidhi durriyadday dhalaan iyo kuwa duudka ugu jiraa diinta qaadanaayee iska daa kumuu odhan dulmigii iyo xumaantii daacigii ilaahay rasuulku sal lay wasalam tala wuxuu ka doorbiday qudcur iyo habeen dama dayaxoo aan soo bixin degmadii makaad inuu hijro dibadda uga baxo abibakaray daris iyo dad iskugu jeclaayeen lugta sow iskuma darin gabadhii ducaysnayd sow sahay umay dubinoo laba dacal iskuma xidhin yay ahayd gabadhaas asmaa binti abibakar laba dacal iskuma xidhin godkii ay duqaydii qurayshiyo doqonkii abijahal markii ay dareemeen daacigii ilaahay inuu hijro dibadda uga baxay sow ciidan lama dirin oo guuto lama dumin inay soo dilaan ama dib u soo ceshaanoo diinta ay ka saaraan dannigoodu ma ahayn godkii ay dul marayeen rasuulka sal ly slam sow daakhilkiisa kuma jirin haddii uu middaylaa sow indhihiisa lama dedin dadkii reer madiinaad iyagoo diyaar u ah duhur sow umay tegin rasuulka sal lay wasalam aniguu ila degayaa aniguu ila daris noqon dadkii sow iskuma qaban dadkii soo hijrooday dadkii reer madiinaad dunyadii ay haysteen dahabka iyo maalkii dacal sow umay jarin oo dumarkii umay furin oo danwadaag ma wada noqon ducadii rasuulkiyo deeqdii ilaahay darisow lamay noqon oo waxyiguna isdabajoog yathrib uguma soo degin duulaankii gaalada dagaaladii ay qaadeen yaa doqonkii abijahal sow dacar ma leefsiin uma daaficin rasuulkii sala allahu calayh wasalam low kaanat idunyaa taduumu liahliha daa'inkii ilaahay haddii uu ciddayn lahaa daacigii rasuulkii duhur lagama dheelmeen dadaalkii saxaabadu dadnimadii ay muujeen diintiisoo ma ay fidin oo dacallada adduunyada daraf ilaa iyo daraf soo ma ay tegin maantana way dayacan tahay rag ducaadii uma kicin
duqaydu u xidhatiyo rag ducaadi uma kicin kacan wada dareerne oo diintu yey gamaarine aan dogobyo saarne waxaan idiin sheegayaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa laakiin waxaad ogaataan wadaadada yar inay gabyaan rasuulkana jecel yihiin suugaanta soomaaliyeedna ku dadaala waa mahadsantihiin salaamu calaykum جزا الله أخانا أبوانك لقمان وهذا كان أنتي وحجيب له سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كسوف كلمات كوبا أجل كيس الله ولي عرفي الله دورة هذا إن شاء الله تعالى